waxaan halkan shirkada ku qabanay anigii chief caaqilkii guud ee beesha jaamac siyaad axmed cabdigaas cawke in beeshu ay mid tahay marka koowaad jaamac siyaad maadaama caaqilkii ugu weynaaye garaadkii aan ku fadhino cuqaashii kalena ay joogto midda kale waxaan halkan ka hadlaynaa warar bulshada la isla dhex marayay oo propaganda ah oo hadalla inta la googooyey la yidhi caaqilkaa sameeyey iyo garaadkii caaqilku way sayaan waad aragtaan maanta annagu isma hayno laba inoo ilmaadeena baan nahay caaqilkii ugu weynaa reerkii weyana garaadkii baan nahay shirka iyagu maanta intaasu ku saabsan yahay dadka waxaan u sheegaynaa wararka been abuurka ah ee bulshada la iskaga horkeenayo ee aan jirin ama mas-uuliyiin inta warar laga duubo aan been ah oo laisu geegeynayo war ilaahay intaad ka baqdaan ramadaan baa lagu jiraaye joojiya wararka been abuurka ah iyo dadka aad iska horkeenaysaan annagu isma hayno haddeerba ogaada ishii rugtay ku bikaacso caaqilku waa kan wixii danta guud ee dhulbahanta ah ee dhulbahanta ay dani ugu jirto ninna laga bari maayo xaaladahan jirana waa ka tashanaya garaadaduna waa isu imaanayaan taladuna meel bay ku ururaysaa wax laga tashaday bay noqonaysaa ishaynaanu annagu ishayno oo maanta iska horjeednaa ma jirto waxaase dhacday in la yidhi oo xagga kor lagaga timi mid dibad jira iyo mid gudaha ku jira iyo mid hadda dhulka joogaba garaadkiiya cawaysayaan maxay ahayd axmed cabdi isma hayno waxaan anigu leeyahay kaygii codkaygii kii odaynimo kii wadaninimo kii dal kii dageed baan ku hadlay haddana waan ku hadlayaa kamana leexanayo garaadkuna kaasuu igula socdaa waxa weeye wixii aayaha iyaga ah wixii dalka iyaga ah wixii dantayada ah waa udaysannahay